السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قلبي وايد سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان قال سعطان واحد الراع إيو ميريك لأنه مباراتين سامي أوفيشيال waxaan leenahay fadlan subscribe-ka nagu dadaala barnaamijyada si ula socotaan inta nagu xiranna waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin walaalahay igu garabkana siiseen iyo sidoo garab taagan tihiin annagu waxaan isku danaa hadii jeer inaan idin soo gudbino waxa idin qanciya talooyinkiina la aanu qaadano waxaa jira barnaamijkan la yiraahdo ila tali in ballan qaadiyo ay sameysay Fadhiso oo ahaa inay dad u sameyn doonto sida qof ugu horeysa sharaut وين صوت ديارسي إن شاء الله يلا ندي شيء ضد كمان تكون ليست إن لازم يو يعني أنا بروح ماني طيب أنتوا مثلا هم سوق قادرنا أنت كلو كنت بتشتغل سوق قادرنا يبرم مشهد الدنبه إسلامات وحنو البرنامج كا ولا شيء في بسوا بقرة دينا أتريشة دينا مدح دينا أيها اللي قلت إن شاء الله بسيجله هنا تمشار guys soo dhawaada sidoo kale Sami official subscribe saara idraa film subscribe noo soo saara wiilka ugu horeeya aan like shout out ku sameeyay waxa waay Abu Siham official channelkiisa waa kana subscribe saara dhiirigeliya Soomaali anaga isku ah ina is dhiirigelino waa ku qasbayeen Soomaa sidoo kale nimca deeqsan waa tana ayadana subscribe usara fiidiyaal qurux badan ay soo gelisaa halkan oo salaamina fiidiyaal qurux badan bay soo gelisaa ayadana subscribe usara xagga sare show waa kana asaga wiilka burta fuulayo waanu ku salaamnay asagana subscribe soo saara xagga sare show fiidiyaal soo geliya laftirkiisa marka waa kaasa intaas share out keen maanta ku egahay tripka dambe iyo fiidiyaasha dambe aan soo qaadan doono ayagana waa soo geli doonaa dadkii oo short out-ka naga soo codsado maanta waxa waaye qisada aan maanta wado waa qiso aad u murugo badan oo waliba maxaa lahaay ani ahaanteyda iga qiiraysiisay marka haddii aan ku bilaabo waxay dhahday waxaan la socday wiil ayaan waxaan la socday 7 sano ma dhowdahay 7 sano wallahi labadaas waqti iyaga iska riday ma dhow kadib waxaan go'aan ku gaarnay dhahday inaan isguursano waxay u dirtay aabaheed oo tiriga doono sidoo gabar waa la ogsoon yahay gabar markii la guursanayo in aabaheed laga doonto familka ilaahay baa nasiib waa masuuliyad ilaahay siiyo in laga doonto gabar sharaf la waayo maadaama ay tiri hooyada iyo aabaha igala xidhiid masuuliyad waalidkii muutis waxay dhahday aabaheed iga doono kadib wuxuu dhahay hay waaye aadi marka hore iga gudbi u dhahay وسي شك wiilkaas soo socdo kullu iga sii waxa leedahay iga sii qeyl dhangeem iga sii qeyl dhangeem ya macnaha waxa weeye xubadkiisa wiilkii gabadha hortii magacooda waa qarinaya qisadaas qiso waxa waaya like marka ma wiilka kula soo wadaagay mise gabadha kula soo wadaagtay gabadha ila soo wadaagtay sidoo kale anigana goob jooga ka ahay waa dhigi kara oo waan la socdo إن شاء الله ما أنت المركب برنامج كان بلاو واحد هذا برنامج كان ما دام عوض سوق هذا واحد هذا واحد لا سعود ويل أيام تتوصل لا سعود كذي واحد قان كوجاري هنا نسكر سنة أبيه ما وصوبان دقيقة هذا عليك أبو مياها ويلا قصة كاسو دورنا يو دوا كاسو إن نسكر سنة ديار بنحن سؤالش أجوه رئيس ودي وحيد شكرا أنا بكعبسنو يبي عدكوس يقول لي سهل أنا بيعبسنو سهل سؤالش أجوه رئيس ودي وحيد وقبيل كي هاي شو ما يقول ما قلت قبيل كقبل وأنا ما قرني سؤالش أجوه رئيس ودي ويلك وقبيل كي كده أنا بحال هذا نسكن حي وحال هذا سدح كيلا يقعد عبي صوبته waxaan ogaayay dhahd wiilka inuu ka dhashay qabiilada la liido aniga maxaa u jeclaayay dhahd maxaa lagu liidayaa islaam ma ahmiya Soomaali ma ahmiya waxa dhahday wiilkii qabiilada la liido ka dhashay dhahd wax kasta ay tahayna qabyaalad iyo waxaas in laga tagaa wanaagsan Soomaalideennana waxay aaminsan yihiin amba ay ka dambeeyaan qabiilka aad tahay in qabiil kan maanta ka hooseeyo in de muslim ma ahmiya dadka ana wallahi waxa ku jooga karnay inta ka dambeeyay hadii aan si hadlo xumaantida loo dhadhacaya wallahi
jacaylka saaidna waa u jeclaa asagana saaid buu ii jeclaa bay tiri kadib waxay dhahday wiilkii waxaan la ogaaday inuu qabiilada liliida ka dhashay oo familkeyga wiilkii waxay dhahday ma quusanin bay dhahday wuu u imaaday dhahday aabee markuu saas u imaaday wuxuu galabsado ma laha laakiin soomaalideena waxaa yacni waxay aaminsan yihiin like qabiil iyo waxaas ka dambeeyaan wiilkii gogashaa lagu kiciyo markuu saan imaaday maandhow waxaa la qabiilkaaga ii sheeg markaasuu dhaha waa kaas waa qabiilkayga waa noocaas iyo noocaas waxaa lahay qabiilkaas gabadheeda ma geeyo ee ka kacaa lagu dhaha meesha wiilkii asoo murugsan qalbi jabsan wareersan عبدي عبدي وصلت صعبات 6 دقيقة ومراي تربالك وحاول ودي ايوبيو اوكي مرة كان بس كلمت اسمعنا اوكي صعب maxaa inta siinay dekad iga dhacday qabiilada wiilka asagoo murugsan niyada ka jabay buu iska soo baxay guriga ka soo baxay kaaga daran adeeryaashiis yaa la socdaan meesha wajiga waxa ka dhacay meeshii adiga wajigii baa fiiqmay waa gabadhii baa isla markii aabay waa la shafray fiiri inta khayrkiis sameeyo muu sameeyo gabadhii kale muu talin wada xun كم طلنا عن قلداف خصوصية معناها عن قلداف حالي هذا نك قبل سوري معناها عن كلا سنة سنة خموسا ونن أما كل ما طلنا سير شرط صلها يدو معناها قصة مري ويجي أبو أولاد له السيجي يجي ويجور جي وصوتهم وصوت بالفريستي شيء شرف الوالد وصوت حيستي إن لا بدر سبرتان ديار وهم نقطة إن لا بدر في ملحريق السمايو وبد إلى هي كلا سيجي والد لا يسون نقطة مثلا abaalgudku wuxuu noqday reer halbaatahay guriga nooga baxay adiga ugu dambeyntii familka waa la soo bixiyay guriga laga soo xirtay balbaabka gabadhii aabeed wuu wacay gurigu waxay jirtay adeerkeed xaadirkaas hadda just meesha taagan tahay taagnaa waa lagu dhahay gaari xiimay waa kana odaygu u tagay gabadhu gaari soo saaray gurigu keenay waxay xiray gabadha la xiraya waa la xirxiraa gacmaha iyo lugaha iyo guriga lagu xirxiray adiga gabadhii waa wareera ku dhacay stress cunto la'aan cunto macuniye dhahday aan dhan waa fikiraa waxay dhahday habeen walbaba adiga ugu dambeyntii ani aabo waa iskala hadlay dhahday aabniyaha ninkaas adiga hadda ii rabin ani ma gursanay dhahday adiga waxaa rabtid aniga ku sameynaayo waqti adiga saas ma yeelina wuxuu intuu arday buu in adeerkeed ah والله يا كانوا كعين بدين هاي لا يا كانوا كبنا على سنة هاي قبل أخرت وقليل قبل ومهريي ويلكي وحجرة ميلها سوتشرة إن هذا كده مهر قاسم حلال بمسوا حرام والدكم معناها ولاد إلهي واسية لكن رفتان قصك إن دين توخك قبصمة قبل دي حد منك كلا قبو أيد واحد مانك كوهيسا أم قلبي كوهيسا ما لا يقول كلامك ما لم يقول كلامي ayadaa meermeerinayso mar walbaba wuxuu leeyahay aasiyadan meelahan imow anoo ku imaanaya ayadana waxay leedahay halkaas bay wax ka dhacday adiga meermeeris iyo waxaas ilaan wiilkii markaa ma ogyahay in macnaha gabadhii la guursado la meheriyo xoog lagu tujoobay waxaas dhan wuu ogyahay way u sheegtay waxaas dhaceen dhahday dhib ma lahan oo dhahay anisu dublaqa dhib ma lahan oo dhahay iska daa ilaa hadda wiilkii ma guursanin ayadina ninkii lagu darana weli may u tegin kumana faraxsana ayada ilaa hadda waxay diyaar u tahay waxay dhahday asaga dhanba sideeda ma ku joogaabay tiri ilaa ivina abadan ka dhimanayo ma sideeda ku joogaabay tiri mase waxa iska aadaabay tiri ninkii baa iska aadaa maxaa sameeyaa wiilkii baa weli qalbiga waxaan ilaa samiri ma Allah kaasi samiri inaan qof lintay iimaba cunto ma ay tiri sababtoo ah qof aan aniga aqoonin nimba wuxuu iga sheekeeyey sheekada faniya macnaha sheekada kusoo xasuustay Soomaalidu horta sideedaba walaashii fuxusay kala baqda
بيلاد كل شوط ملك حتى أردتو سومالي أوفيرسوتو بدنا وحي كليين على ديسك إيه مارتي بقدر إيه حق بقايا صح مريكن كا بدنا سومالي حق بقايا إن هذا شرعي كان جوي هون شكله نحكي على مريكن كا سيدا اللي يقول شيء نقول كسي يقول شيء وحول نبى ها مريكن كودا شيء gabadhuna iyadoo yar baa la keenay Mareykanka aduu gabdhaha 10 jir meelaas ugu keenay waa isjeclaadeen marka isjeclaadeen waxa uu heshiiyay in wana family waqti صح ayada wax ay ku ogtahay maan bay qabiil asawna ka badran ma wani Mareykan dhashay illa waciya odaygii dhalay gabadha waa dadka sida ninka aan sheegayso gabadha hadda ka sheekanayso aabihii kale oo qabiil iyo waxa ka dambeeyay laakiin odaygu gabadha dhalay wuu yaqaanaa wiilkan reerkooda صح wiilka laakiin wuxuu soo yaqaanaa only yaa tan kaliya ama American yaa ka sii tahay Soomaali ilan yaasay wallahi badana ma yaqaanaan qabiil iyo waxaas dhan ma yaqaanaan maxaa la say wallahi say wallahi yaasay wallahi TikTok kan ka say wallahi Allah wada fahmay waxa dhacday markuu wiilkiiba gabadhu yimid oo adeer gabadhii baa ka rabaa كليكس مكوي odayaal iyo kan ugu soo kaxaystay kan soo kaxsan soo saa dhahay uu yimid qaasoo adeer gabadhan ka is odaygi waa fikray waa in hebel waa reer hebel garanay marka beel ku soo jeedo صح meesha jooga Mareykan ma dhigi karo wariyaa adoo reer hebel qoodda iyo xalada inta ma waxa soo hindisan gabadhayda iga soo ma dhigi karo qodobka ay la qoro iyo in la yiraahdo macnaha waxa sameynaysa cunzuri Mareykan cunzuri baa ka tagaliidi وقال أنا إستسوء عده هذا الكوكب مهلكا ويلك بالويلي إستسوء عده وضيق بعدها هي سو سبيلي ما كان كل ربع إنه ويلك أنتوا إستسوء عده لا أرضه إنه قلت أبي ولا أب ننهب البنكور كطنطيو ويقول إستسوء عده كدنا أبيه ويلك إلا ونو نقدرنا ويقول هذا أب وكنا عطين تقول صدري كبر أبيه وريه هبل أنا ريه البنا اسمه كينو عجب قدي وما كان ويلك أبيه وإستسوء وقلت markaas is soo caday wiilkii waa baxay stationity wuxuu soo qortay wirigii wadanka intuu joogayba inuu dambi ka gelin ilaa maxamed ku soo qortay wuxuu haystaa in loo diro warqad is soo cadina dambi leeyahay kale uu baxay okay warqad weyn markaas adeer waa kan odaygu waa joogay dambi ma ilaa iyo primary ilaa iyo secondary wax dambi ma gelin jaamacadii sidoo kale wax dambi ma gelin ilaa laysan markuu qaabo ku shaqo tagay wax dambi ma gelin warqadiisa waa dhaw nadiif وماشي غلط قضية ماذا بقى بصوت وحصل مكان كلها سوري والله يسير ليش الجوال ده شيء كسي كلها والله بالله وذيك ولا قرأي بكا كن هاد أكشي كينيس والله بالله والله سي إسلامي منا ما أوصمي سي والدي ما يمسود والدي منا ما أوصمي سي الصومالي ما أوصمي واي ويلك كبرت صوتي ولكن أو صومالي ولكن أو إسلام بمول بام حكنا لغة بام حكنا طلاشة حكنا هو يدي سانكرنا يا أبي سانكرنا يا هو يدي بكرنا يا أباه بكرنا يا معناه ده شو أكتر سنة ما ميلو كلام كرنا إحنا ميلو كلام كرنا يا صح Soomaali oo basaasa Soomaali oo dhan baa basaasa afar istixqaar tirsataa ma fahmay marka ninka inta garanaya ee inta anoo maanta ka yar garanaya asagoo maanta dhali kara garan la yahay waa ayaan daro waxaan leeyahay kawaantooba qabiil kawaantooba qurun waay wasakh waay 35 sano baan madaxa la gelinaa weligay ma arag waxa la yiraahdo dawladnimo orod ah dhalanay orodka ilaa hadda ku jirnaa ilaa wili wasbursanayna ilaa hadda wasbursanayna ma fahmay wixii soo iftiimana waxa duminay waa odayaasha ka dhaafta qabiilka dhalinyarada gabadha soo sharaftay ee kula timaada ku tiraahdo aabbow gabadhaadi baan ahay ninkan aan wataa isi ku sharaf waxaad weydiisaa haddii aad u baato naama islaamba naama tukada weydii naama soomaa weydii inta ha marka guys waa maasantihiin daawashadii sida aan noo daawataan sidoo kale waxaan idinka raaligelinaynaa maalmo muddo dheer idinka maqneen oo barnaamijkan wataleynta idinka maqnaa insha allah wallahi barnaamijkan murugadeer maalinta aan qabto habeenka dhimad xanuuno sorry aqay idinka caafimaad qaba anaga caafimaad qaba waa ku tusaya madaxa xanuunaya idinka caafimaad qaba anaga caafimaad qaba ma bye bye